kusoo dhawo Fan Academy taawo calaamada subscribe-ka kadibna furo gambaleelka taana waxay ku saaraysaa cashar kastoo aynu soo dhigno inuu kuu soo dhaco isla waqtiga aynu soo dhigno waad mahadsan tahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Magacaygu waa Axmed Cabdulqaadir Xuseen. Halkaad igala socotaana waa Fan Academy. Darsigan waxaynu ku baranaynaa farqiga u dhexeeya Google AdSense iyo shirkadaha kale ee partnerka la ah YouTube-ka ee loo yaqaano MCN. Haddaynu ku horumarno Google AdSense. Google AdSense waa shirkad ay leedahay shirkadda Google oo leh YouTube-ka. Shirkaddan waxa weeyaan shirkadda sameyso xayeysiiska ka muuqda website-yada iyo YouTube videoska. Waa shirkadda lacagta bixiso. Google AdSense-ga shuruudeeda hore aan soo sheegnay sanada 2018. Sharciga waxa weeyaan inuu qofka YouTube-ka leh uu haysto in ka badan 4,000 oo saacadood ama 4,000 oo saacadood oo buur ah iyo 1,000 subscribers. In 1,000 qof ay subscribe gareyso channel-ka. Kadib waxay marinayaan process ah review wax la yiraahdo. Way eegayaan inaad shuruucdoodii iyo waxyaabaha lagaaga baahnaa oo dhan aad martay. Haddii aad ku baasto waxay ku ogolaanayaan inaad videoskaaga lacag ka samayn kartid. Taasoo ku xiran inta xayeysiis bishiiba la dul saaro videoskaaga. Kulama heshid xayeysiis fara badan lacagtaada way badanaysaa. Haddaadan helinna inta aad heshay ayaa lacag ku helaysaa insha Allah. Sidoo kale waxaad u baahnaanaysaa wax la yiraahdo poster code ay kugu soo dirayaan. Poster code-kan waxaa lagu buuxiyaa sidaan kusoo baranay samaynta Google AdSense-ga. qaybta ku qoran tahay personal information-ka, address-kaaga, information-ka iyo address-ka ayaad buuxinaysaa, magacaaga, meesha aad degan tahay, poster code-ka ama zip code-ka aad gelinaysaa. Haddii aadan hore u gelin ama aad mid kale ku gelisay mid sax ah geli waad bedeli kartaa. Waxaa laga bedelaa Google AdSense dhexdiisa. Postal code-kaaga ama zip code-kaaga saxda ah geli. Markii lacagtaadu ay gaarto $100 waxay kuu soo diraysaa PIN verification code. PIN-kaas waxaa lagugu soo dirayaa boostada. Waa lambaro waad gelinaysaa kadibna waxay ogaanayaan inaad tahay qofka leh Google AdSense-ga. Waxaad ku xiraysaa bank account-kaaga. Haddii aadan lahayn qof kale oo aad aaminsan tahay oo qof wanaagsan ah bank account-kiisa oo wadanka AdSense aad ku samaysata ah geli. Si toos ah ayaa lacagtaada u helaysaa bil kasta 21 inta badan. Waa markii aad gaartid $100. Ayadu waxay ku xiran tahay inaad $100 gaartid mar walbo. Haddii bishan aad gaari weysid waxaa lagu sugayaa bisha dambe. Google AdSense-ga waa ka. Haddii aan u gudubno dhanka kale MCN-ka ama networks-ka sida Scaleup ama Freedom. Shirkadahan waxay kaga duwan yihiin. Ayagu mar walbo waa lagaaga baahan inaad leedahay Google AdSense horta. Ha u maleynin inaad Google AdSense aan lagaaga baahnayn. Adoo Google AdSense-gaaga kuu shaqeynayo ayaad kuwan codsanaysaa. Haddaba ha isku dayin inaad Google AdSense-ga marnaba aad cancel-shid. Ha isku dayin cancelin. Adigoo Google AdSense ku xiran oo si toos ah kugu shaqeynayo ayaad u wareegi kartaa kuwan adoo codsanayo bis wax kale ma sameynaysid. Laga yaabo dadka qaarkood inay u fahmaan in laga guurayo Google AdSense loo guurayo shirkad. Guuritaanku waxa weeyaan dhanka xayeysiiska baa la kala wareejinayaa mooyaane sidaas ayuu kugu shaqeynayaa Google AdSense-ga. Haddaad cancel-shid shirkadahanna kuma aqbalayaan ayagana. Okay. Shirkadaha marka waxay u baahan yihiin sidoo kale shuruucda Google AdSense-ga waa 40,000 oo saacadood iyo 1,000 subscriber. Kuwaas mar walbo waa lagaaga baahan yahay. Okay. Ayaga waxay kaga duwan yihiin lacagtaada ku xiri maayaan $100. Haddii $1 shaqaysatid lacagtaada si toos ayay kugu soo dirayaan. Waxayna kugu soo dirayaan wax loo yaqaano PayPal. PayPal-ka markaad sameysanaysid haddaad gashid paypal.com haddaad gashid ku sameyso number Yurub ah ama Mareykanka ah. Inta badan wadamada Africa ama Asia lacag looma soo diro PayPal-ka.
waa shirkad website online ah ama lacag online toos ah kugu soo dhacayso gmailkaaga. Lambar dibadda ah Mareykanka ah ama Yurubta kale iyo wadamada kale Mareykanka ku sameyso gmailkaaga. Lacagtaas si toos ah waxay kugu soo dhacaysaa gmailkaaga. Waxaa ku xiranaysaa shirkadaha meel waxay leeyihiin lagu xiranayo paybalka. Bil kasta lacagtaada si toos ayay kugu soo dhacaysaa. Ayaga uma baahna waxa la yiraahdaa pin verification code iyo postal code ma kaaga baahno iyo threshold-ka ah $100 kaagama baahno. Waxaad shaqaysatid bil kasto ilaa may noqdaan sentiyo waad leedahay. Laakiin ayaga inta badan requirement-iga lagaaga baahan yahay waxaa weeyaan in aadan isticmaalin videos copyright leh. Videos adiga aad samaysatay waa inaad isticmaashaa. Marka waxaan rajeynayaa inaad fahanteen. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.